السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabta. waxaan jeclaystay inaan clip yar idinla wadaago oo talina wax badan ku jiri maayo. clipkeenu wuxuu quseeyaa maanta, wuxuu quseeyaa sanadka sii dhammaanaya oo ah tiradhada inaan la furin amaba ay adag tahay inaad tiradh furto. sidaan wada ogsoonnahay, suuqu wuxuu galay sanadkii intii ugu dambeysay ayuu galay waqtigu. kala bar maanta waxay dhaaftay 2 cisho 8 bay maraysaa December. marka suuqu range buu iska gelayaa intaa wixii ka dambeeya ilaa sanadka cusub, bisha kowdeeda amaba bisha kowdeeda ilaa 12 inta udhaxaysa range buu suuqu iska galaa inta badan sidaynu ka naqaano amaba sidaynu hore ugu soo aragnay. marka waxaan idinkula talin lahaa in aydan tiradhada furin haddii aad ka maarmi weydaan oo tiradhkaas uu ku waafaqo shuruudahaagii amaba ruliskaaga aad lahayd systemka ku trade garayso waafaqo. waxaan kula talin lahaa inaad lodka ku geliso markii hore aad yarayso, because suuqani markuu sanoo kale uu unbalance u yahay ama una balance garaysnayn, spiritkiisu wuu kaxsan yahay amba high spirit ku furmaa. waxaa laga yaabaa haddaad one lot ku gasho inuu ku dhowaad 20 ugu qabto sleepage casaana. marka waxaa laga yaabaa waxyaaba kale uu sameeya waxaa kamid ah inuu candle u jawaabo, candladu qaarna iska daataan qaar kor iska baxaan. waa suuqa waxa ka maqan traderisk waaweynaa amba institutional traderisku intooda badan fasax iska galaa waqtiga suuqa balance gareeya. dadka kale ee lacagaha waaweyn suuqan geliyaano way xasanayaan, suuqa way ka baxaan. waxyaabaha kaloo suuqa ka dhex dhaca waxaa kamid ah in lacaga lagala baxo waaweyn oo aragto waxyaaba aan magaranaysaa suuqadan hore uga arki jirin candle meel gaab weyn ku furmaya. marka inahaasoo dhan waxaan kula talin lahaa haddii aad furayso account amaba aad trade furayso inaad ku furto lodkaaga hore wax ka yar. haddii aad doonayso inaad profit iibsato ama aad ku trade garayso waqtigan, sanadka cusub iibso wixii ka dambeeya 12 January. xilligaas soo noqdaa fasaxyada badan laga soo noqdaa. marka waxaan idinkula talin lahaa in aad uga taxadirtaan oo aad backtestingkiini iyo waxbarashadiinu sii wadaan ayadaan trade iyo waxa furin. haddii uu shuruudaha ku waafaqo trade qurux badan kusoo maro oo systemkaada ku trade garaysanaana lodkaagii hore lodka yara ku gasho. marka inahaasaan kusoo koobi lahaa. waan idin soo dhaweynayaa, in soo dhawaana leeyahay.